اوكي. عاو عشر كان حكو سابسين هي انتري كريتيريا وحاس اسبوعين اللي صدفه waxaa soo marnay demand and supply saddexda ugu muhiimsan suuqan waxaan dhahnay waa demand and supply liquidity iyo sidoo kale structure saddexdaba gooni gooni oo soo aragnay isbuucii oo soo qaadanay hadda marka waxaa joognaa meeshii ugu dambeysay oo muhiim ah inaad hal xab kaliya xifdisid waxaa la rabaa saddexdood trade kasta every trade waxaa isku qabanaya saddexdan wax kale aan isticmaalno smart money marka aan wax kale oo isticmaal ma jirto structure ugu muhiimsan liquidity ku xigto demand and supply iyadana waa qasab marka saddexdan haddaad demand and supply kaliya aad ku noqoto master aad liquidity hal xab ka garawaysid tareerka maahan waxaa fiican intaad kan 70 ka haysid kan 70% kan 70% inta ka haysid waxaa ka xun inaad demand and supply boqolkiiba boqol aad taqaanid liquidity boqolkiiba boqol aad taqaanid structure aad boqolkiiba konton taqaanid wali isma dheelitirna marka waxaa la rabaa inaad dheelitirtid saddexdaba isku dheelitirtid saddexda mawduucyo hoos imaado oo waa garanaynaa who's control iyo expectation oo flow iyo waxyaabahaas dhan marka caawa waxaa joognaa meeshii ugu dambeysay oo entry oo maxaa yeelay markaad demand and supply soo dooratid liquidity soo dooratid aad structure aad iska ogaatid lama rabo suuqan kaliya inaad structure-kiisa aad dhahday waa kor waxaa la rabaa inaad kor u gashid lacagta suuqiga kor u socda waxaa markaad buy u gashid laga yaabaa stop loss ka dhaco kadibna kor aado marka entry waa meesha ku hagi doona caawa waxaan ka hadli doonaa entryyadeena sidaa hore u soo sheegnay waxaan isticmaalnaa only two entry two ka badan ma jiro number 1 waxaan naqaanaa Philip entrygan koowaad waxaa la lahaa Philip entry labaadna waxaa la lahaa George entry labaadna waxaa la lahaa George suuqa markaan ka soo falanqeyno dhammaan intii kale markaan wax kasta aan soo helno kadib meesha ugu dambaysa oo suuqan isku soo imaan doona waxaa waaye inaad u gashid buy mise sell waxa ku cadeyn doona inaad suuqa buy u gashid mise inaad sell u gashid waa labadan kaliya wax kale ma jiro waxa la dhahayo higher high higher low higher low ogaaday kadib suuqan buy ogala ma jiri doonto kaliya suuqan markaad higher low iyo higher waxa aad soo ogaad kadib waxa isku imaanay inaad trade-ka flip ku gashid mise inaad George ku gashid labadan kaliya mid kale ma jiri doono hadda taqaanida waa dhib malahan waa extra ku noqon doona hadda marka waxa arki doonaa waa maxay Philip waxaan ka bilaabnaa Philip labada entry kan ugu muhiimsan uguna fiican uguna win rate marka ka hadlayno smart money ma win rate-keeda ma fiicna laakiin waxa badan RR-keeda taas waa in isla fahantin waxaana fiican qofka inuu psychology ahaan u dhisan yahay maskaxiyan maxaa yeelay waxa smart money haddaan nahnay win rate smart money aad ayuu xun yahay win rate waxaa laga wadaa trade-yada camal haddaad 5 trade qaadatid 5 trade marka qaadatid waxaa laga yaabaa inaad 3 khasaarid labana aad faa'iidid waa win rate Allah win rate marka qofka 5 trade qaato 3 trade na khasaaray 2 trade na faa'iiday percentage waxaa waaye 40% marka win rate-ka hadduu 40% yahay waxaa lagu kabaa RR win rate waxaa ka muhiimsan RR risk reward waxa meesha maanta u jeedo smart man loogu soo cararaya ma ahan win rate waa kaliya waa RR kan waxa dadka indhahooda u fiican waa RR maxaa yeelay win rate haddana tusay win rate waxa ka fiican استراتيجية دمانتين كسر تقني support and resistance استراتيجية هاد trendline strategy وين رد كذا وفعنا لكن RR كذا حنا stop loss كصدم بيب حداد بقول stop loss كصدم بيب حداد وسعتي بقول بيب that's almost 3.3% هاش 3.3 لكن smart من مركز جبنا وحأركت أنت هالكي تريد إن هذه average وإحنا خدنا 20R هالكي تريد 20R 10% 50 حتى بقول ولا يهلا marka suuqan waxa kugu hayd doono waa RR wuxuu u baahan yahay psychology ahaan inaad psychology saad u dhisan yahay oo inaad tahay qof psychology si fiican yahay maxaa yeelay waxa arki doonta inaad trade badan khasaari doonto trade badan kaliya waxa u baahan tahay adiga marka trade khasaartid the fasting waxa jira wax la leeyahay the fasting trade-ka hadduu stop loss ka dhac waxa ugu horeysa ismeeys waxa way high time frame u laabo tusaale ahaan haddaad 15 minute aad trade ka gashay 15 minute inaad trade gashay maahan oo entry haddaad 15 minute ka qaadatay stop loss ka uu yahay 10R mar allaala markuu suuq stop loss ka dhaco adiga 15 minute taagnaan u laabo 4 hour u laabo haddaad 1 minute stop loss 1 minute haddaad ka gashay trade-ka isla markuu stop loss ku dhac adiga 1 minute taagnaanin oo haddana supply zone kala soo calaameen waxa ugu muhiimsan waxa waa zoom out sawirka guud soo arag
waxa arkayna stop loss qof markuu ugu dhaco isla markuu asoo 1 minute taagan waxa arki doontaa in isla 1 minute inuu ka fiirinayo another supply zone another demand zone maya waxa ugu muhiimsan suuqa waxa waa high time frame 1 minute kaliya anigu wuxuu yahay confirmation hadda marka waxa arkayna tusaalooyinka arkayna waxaan ku bilaabanaa Philip waxa jiro laba Philip number 1 kan ugu horeysa waxa la lahaa SD Philip kan kalena waa DS Philip SD Philip marka trade sidee SD Philip uu qaadan kartaa su'aalahan trade kan waxa loo dhahaa SD Philip waxa laga wadaa trade supply zone ku socday demand zone la wareegay marka sidee uu qaadan kartaa this is high time frame demand zone joogna suuqa wuxuu ku soo socday wuxuu ka yimaaday suuqa wuxuu ka yimaaday high time frame supply zone ka yimaaday markuu high time frame supply zone ka yimaaday isla markuu wuxuu ku yimaaday high time frame demand zone ku yimaaday anaga maxaan garanaynaa time frame ku ka weyn yahay ku awood badan yahay mar allaala marka high time frame demand zone lagu joogo waxa fiirinaa Philip waxa la lahaa the fast reaction ugu horeysa supply zone ku siiyo kadib المروا على من سلوغو ورين ماشي مع سبلايزون maxay ku tahay break of structure kuma laaban hadda break of structure waxas break of structure another demand zone trade ka trade ugu high probability waa kuwa ugu sare probability oo boqolkiiba ma dhihi karna laakiin waa high probability marka ku qaad trade high time frame sala waxaan oo dhan calaameena waa 15 minutes mise ka soo qaad kan waa 4 hour kan waxa ku soo qaadaa demand zone ka waa 4 hour laakiin calaamadan waa 15 minutes waxaana suuqu ku socdaan waa 15 minutes maxaa dhacay mar allaal markii 4 hour demand zone lagu yimaaday sidoo kale 15 minutes uu ku sii Philip 15 minutes Philip supply zone lagu yimaaday reaction dhacay break dhacay waxaan dhacay waa 15 minutes haddaad aragtid Philip kan ka hadda kama hadleen liquidity waa arkayna markaan dalno mar allaal markuu suuqu soo laabto tradeyadan waa tradeada high probability targetka marka target adag ku talaa target mise ma liquidity target grade unta mise week high waxa dhahnaa high la soo dhaafay oo looga jibi waa ma target grade unta the next supply zone ma target grade unta aniga dim badana waxaan target gareeyaa the next supply zone kaas waa waxaan dhahnaa Philip hadda waxa arkaynaa habkii hore wuxuu SD Philip kan waxa arkaynaa DS Philip sida magaca sida ku arki kartid suuqan waxa maamulaya demand zone waxa la wareegay supply zone demand to supply zone kaasna sidoo noqdaa wuxuu noqon doonaa waa isla kan oo vice versa leh waxaan joognaa supply zone hoostan waa demand zone marka mar allaala markuu suuqa ku tago demand zone ka soo tagay demand zone markuu ka soo tago supply zone ku imaado maxaa suugay the fast reaction ka ha sameeyo reaction kadib break ku sameeyo ila waxaana dhan waa demand zone suuqa waxa maamulaya demand zone fiiri demand zone every demand zone respect to sameynay mar allaala markii supply zone suuqa lagu yimaaday maxaa loo jibiyay demand zone waa in isweydiisaa maxaa demand zone loo jibiyay waa su'aal kadib supply zone saaro that supply zone marka waxaan oo dhan every time frame ka shaqeeyaan daily waa arki doontaa suuqa saan inuu sameeyo suuqa daily saan one day saan uu sameeyaa one day uu sameeyaa 4 hour uu sameeyaa 15 minutes uu sameeyaa 1 minute uu sameeyaa 30 second uu sameeyaa ilaa 5 second oo time frame ku yaray 5 second hatta uu sameeyaa marka adiga waxa laga rabaa time frame ku weyn inaad ka aragtid Philip markaan kale maxaa dhacay waxa isweydiinaa hadda kan kale waxa qabanayna liquidity su'aalahan this leg no liquidity box kan waxa isticmaalaa no liquidity Philipka dhiibay there was no liquidity marka laabashadiis maxaa dhahnay markuu laabana waa inuu liquidity abuuraa ama double top hana qabto
oo liquidity ugu caansan Soomaaliya taqaano double top mise ha noqoto inducement maxaa u naqaanaa mise ha noqoto inducement waxaa u naqaanaa mise inducement ha noqoto waa qasab hadduusan leega bareega sameey hadduusan la siinin liquidity hadduuna siinin soo laabashadiisa waxaan ka rabaa liquidity inducement kadib sell arki doonaa tusaalayaasha markaa table ka tagno sell stop target maxaa ka dhigna the next demand zone kaas waa number 1 tradeada aan qato flip waana most tradeada dhan waxay u badan yihiin kana u badan yihiin waa arki doontaa tusaalayaasha markaa aragti George waan qataa oo waa weli George wuu shaqeeyaa laakiin George waxaa kan win rate oo ka fiican flip kana ka fiican hadda waxaan arkaynaa marka George kan wuxuu kala baxaa laba u kala baxaa number 1 waxaa lahaynaa bullish George farta u dulqaata bullish George marka waxaa jira laba George number 1 oo ah bullish George iyo bearish George hadda isla aragno what is bullish George wax kale ma ahan waa kaliya hadduu meesha noo tahay demand zone high time frame suuqa waa soo socday break uu sameeyey laabashadiisa probably laabashadiisa meelahana waxay noqon doontaa another demand zone bullish George kana dhahna marka suuq u socday higher low suuqan soo muxuu ku socday lower high lower high u dambeeya la jibiyay change of character hada meeshaas waa meesha dhahno George lower high u dambeeya la jibiyay George dhacay mar allaal marka George aragtid waxa u laabanaya where is the last demand zone ki u dambeeyay George sameeyay aaway waa u laabanay kadib entry meesha qaadanay George kana waa George sidoo kale George wuxuu leeyahay confirmation oo waxaan jeclahay George inuu badan u qaato confirmation waa maxay confirmation leegan badanaa dadku u sidaa the first leg dadku u sidaa waxa arki doontaa inuu suuqa George ku samaystay kadibna oo demand supply zone soo ixtiraamay kadib kana loo isticmaalay liquidity meesha adii George leedahay waxa loo isticmaalay liquidity waxa arkaynaa suuqa inuu sii socdo arki doontaa inuu sii socdo suuqa arki doontaa oo saas sii samaysto marka George waxa fiican inaa badanaa George qaadi confirmation waa maxay confirmation waxa noqonaya the first level of respect ugu horeyso suuqa ha ka laabto demand zone ugu horeeya ha ka laabto markuu laabto hadda wuxuu noo sameeyay boss uu sameeyay hadda marka waa gal kartaa marka kan waxaan naqaanaa waa confirmation badanaa George waxa kula dalay dadka inay confirmation qaataan inay qaato badanaa George maxaa yeelay sida hadda scenario hadda kasoo sheekeynay waxa aad doontaa inuu badanaa suuq oo waliba marka u badan tahay 1 minute time frame marka u badan tahay 1 minute hadda aragti George 1 minute ka dhacay oo George 1 minute kadib waxa aad doontaa inuu suuqa high time frame uusan George dhicin su'aalahan 15 minute George ma dhicin adii 1 minute George ku qaadatay isla markii stop loss laga dhacay saas waxa fiican marka 1 minute George inaad confirmation ku qaadato haddaad degsan tahayna waa bila confirmation ka qaad stop loss kana waa inaad bila degdeg ku qaadataa hadda waxa arkaynaa bearish George kii hadda wuxuu ahaa bullish George ahaa waxa fiirinaa bearish George farqi waa kan oo kor ka dhac bis kan oo kor ka dhacay sidoo kale had kan waxa raacinayna liquidity raacinayna waa kan oo kor ka dhacay salahan supply zone joognay maxaa dhacay suuqa wuxuu ka soo kacay demand zone ka soo kacay wuu socdaa mar alaala sidoo kale wuxuu ku abuuray double top ku abuuray waa lagu yimaaday maxaa lagu yimaaday waxa lagu yimaaday high time frame tani waa liquidity double top liquidity waxa lagu yimaaday mar allaala marka high time frame haddana waxaan rabaa inaan arko George waa maxay George okay the first level of
lagu jibiyo higher low ugu dambeeya higher low marka lagu jibiyo kadib laabashadiisa waa qaadan kartaa blazon laabashadiisa waa qaadan kartaa wuxuuna siiyay liquidity sweep aa lagu sameeyay liquidity mise waa la qaaday sweep waa la qaaday sweep waa la qaaday kadib waa la soo laabtay waa lagu laabtay that's good trade haddaad confirmation qaadan kartid ma xumo weligaa confirmation sug maxaa yeelay confirmation wuu ka fiican yahay riski confirmation ismid maaha markasta waxaa fiican confirmation aa fiican faa'iidada laga yaabaa waxaa laga yaabaa mataqaanaa badanaa waxaa dhici doonta oo frustration kugu ridi doono suuq adigoo geli kara meeshan waa wax badan oo dadka waxaa arkay suuq inuu saan sameeyo saanoo sameynaa adiga maada galan tradeka maada qaadan oo waxaa sugaysaa confirmation maxaa confirmation ii ah the next boss aawe waa kana the next boss confirmation ii ah hadda marka maxaa la rabaa suuq markuu boss sameeyo inuu kusoo laabto supply zone meelahan ka dhacay in la u dambeeyo meelahaas ka dhacay waxaa arki doontaa inuu sameeyo dag hawada to the moon adina tradeka maada qaadan kan maada qaadan waxaa sugaysa confirmation ka sugaysa hawada kula aaday waxaa laga yaabaa haddaa qof xaq ka qaatay inuu faa'iidoyo xilligan 50 hours suuqa inuu 50 hours socdo adina maadan galin frustration ku dhacay markaana kale waxaa dhacayso bari inaadan bilaa confirmation qaadid bari maxaa dhacay bari kale waxaa dhacay bilaa confirmation qaadan maxaa yeelay tradeerkii shalay ku dhaafay maalin kasto trade dhaaf aniga maalin kasto bari waxaa dhacayso inaad charge kaliya ku qaadatid charge kaliya lacag charge kaliya ku qaadanay only charge ku qaadatay waxaa dhacayso hadana barina hadana waxaa lagu dhufanaa stop loss maxaa yeelay maanta confirmation suugays marka waxaan waa psychology kaliya adi ma aha qasab ma aha inaad trade ka qaadatid maanta wala inaad trade qaadato ma aha isbuuci dhan waxaa kugu filan 5 trades haddii qaadatid saddexna faa'iido tahay mise saddex khasaaraad iska dhaafay saddex khasaartay minus 3 ku jirtaa laba faa'iido labada waxaa faa'iido min 10 waa 20 minus 3 17 ar marka adiga ma waxa arki doontaa trade badan oo maalin kasta ka taga every day aniga trade aan taga every day maanta ugu dambeysay trade aan naga tagay marka hadda waxa arkeena tusaalayaasha arkeena waxa rajeynaa inaad sabirteen kuwan sabirteen aad rajeynaa hadda marka kuwana waxa ku arkeena meeshas chart ku arkeena waliga tir sidoo kale tusaalayaashan waa every example waa example and trade rasmi ka qaatay trade iskama diyaariyo waxa arki doontaa istiraatiijiyada qaar qofku dhahayo waxaan ku sharxayaa liquidity ku sharxaya kadib waxa lagu aadaa example dhacay sanad ka hor dhacay adiga haddii example sax haysa mala imo example-kii maanta dhacay istiraatiijiyadan every day waxaana siisaa entry every day shalay waxaana sii 100 entry maanta another entry khasab ma ahan every entry inaad qaadid khasab ma ahan adiga kaliya waxaa laga rabaa inaad entry ku anfaco kaliya qaado hadda waxaa sameynaynaa tusaalayaal arkayna tusaalayaal waxaan ka bilaabayaa trade amaanta qaatay flip oo qaatay tradekan haddaan instagramkii mise groupka fiirs waa soo dhigay tradekan maxaa ku qaatay tradekan marka su'aal isweydiin mudan maxaa tradekan ku qaatay 4 hour bariyahan inaan soo falanqeynayni maxaa 4 hour ah oo ujeedaa suuqa inuu meel u socdo garla asiihan meel u socdo markaana kale waa dhacdaa euro USD marar wax iska gashaa jawi hadda tusaale ahaan markaan waxay ahayd markaan dhahay euro USD waa iska dhaafa tos GBP testa suuqa wuxuu ku jiray correction feeling how many days from 18 November to 18 January to every 2 months ku jiray maalintuu 2 months ka baxanay maalintuu ka baxay muxuu ka baxay correction ka baxay oo wuxuu sameystay George maxaa yeelay xaggaana waxaan ahayd dhowrahay maalintuu George sameystay wax isdheeyay inuu suuqan inuu sameysan doono kor inuu aad doono kadib uu soo laabtay haddana another correction kale markaas oo kale arki doontaa euro USD inay waxaana kale sameyso laakiin markay dhaqaaqo euro USD way dhaqaaqay haddii hal mar dhahdo way dhaqaaqay markaana kale waxay ahayd bishii soo dhaafay kale way soo dhaqaaqday hadda marka waxaa la jiro xilligeena waalidi gal lahayd haddana way soo dhaqaaqday laba bilas marka adiga laga maro waxaa laga rabaa inaad correction kaas dhexdiisa iska trade gareyso every session habeen dama arki doonaa maxaa trade plan ah sessionka maxaa noo qorshaysan trade plan ah suuqan kugu sii hayd doona hadda 4 hour hadda fiirso trade maxaa ka bilaabnaa that's important tusaalahan hadda waa soo kacay suuq waa soo kacay suuq marka soo kaco isla marka trade iskama aaday waxa u baahan tahay inaad ka bilaawdo meel ka bilaawdo tusaalahan isniin hadda taanay daily ka bilaabo laakiin maalmaha kale arbacada iyo waxa soo kale waxa 4 hour ka muhiimsan daily oo jeedaa inuu bearish ku socdo muhiim maahan 4 hour waa meesha ugu muhiimsan waa 15 minutes ma arki doona marka session joogo hadda 4 hour indhaha maxay ku saan 4 hour 4 hour hadda fiirisi mar waxa soo kale intaas oo dhan waa soo calaameeyay xaggan u dambaysaa inta risk ugu dambayso 4 hour maxay noo sheegaysaa
4 hour waxaa noo sheegaysaa inuu suuqan ka soo laabtay inside barkan oo supply zone ah supply zone marka laga soo laabtana xaguu haddana isweydiinaya waxaan haddana demand zone kan ka laabtay subaxda markaa soo kaco suuq waa sida u calaameeyay without entry intaada gal adiga waxaa laga yaabaa beri markaas soo kacday camal mise maalinta trade-ka diamonds waxay rabtaa ha noqoto sidaad uga sheekaysan lahayd hadda marka saana dhaha hadda demand zone waa kana demand zone kan 4 hour supply zone indhahii markuu hore arkeen waa laga soo laabtay demand zone kan lagu yimaaday hadda marka demand zone kan muxuu sameeyay demand zone kan waxaa laga soo celiyay meeshan supply zone ay taalo oo maxaa yeelay reaction waa laga dhiibay this supply zone reaction laga dhiibay supply zone haddana waa la jibiyey ma move jibiyey waa this demand zone story arro ina abuurtay multi time frame story okay demand zone jibiyey waa lagu soo laabtay waa la mitigreeyay wuu socday suuqa hadda xaguu joogaa hadda probably isla supply zone waa joogaa haddana where is the next demand zone fiiqan waa demand zone fiiqan waa demand zone 4 hour joognaa 4 hour kadib maxaa kale u jeedaa meeshan waxaa ka dhac baray waxyaabahan yaryarka waa wax ugu muhiimsan break of strategy dhac adiga waxyaabahan yaryarka indhaha inay arkaan alba waxaanoo kale ha ilduufin waxaa arki doontaa qofka kaliya wuxuu rabaa inuu supply zone noqoto supply zone pivot waxaa dhahnaa supply zone inuu saan noqdo qasab maahan inuu oo isla meel kanoo kale waxaa lahaa pivot inuu saan noqdo qasab maahan break of strategy maxaa sameeyay hadda tusaale ahaan meeshaan oo kale fiiri suuqa qalinka yarka isticmaal mar fiiri meeshaan break of strategy sameeyay supply zone calaameeso adiga ha ka tagin ha yeesan supply zone kaliya isha ku hayn kaas iyada taasna sidoo kale waa la calaameynaa hal supply zone hal lagama tagay hal demand zone kama tagay okay story abuura story trade-ka maanta qaata trade-kan waa trade life qaatay okay maxaa kale waa isweydiinay saa markay tahay warabro trade abad saa markay tahay waxa isweydiinay marka hal mar ijir waxa jira waxa rabaa New York session markuu furmayay okay session ramanta marka hadda every 4 hour supply zone every 4 hour demand zone Philippe ku sheegay waa kana Philippe kaliya kama dhaco 1 minute waxas 4 hour uu ka dhaca hadda 4 hour meesha maxaa u jeedaa demand zone reaction break waa ka Philippe waa lagu soo laabtay Philippe break samee fiiqana ku soo laabtay wuu socdaa hadda markay saan tahay 15 minute aada 1 hour aadi maayo 2 hour aadi maayo wax soo qasbi maayo marka ku dhahaya only 3 time frames 4 time frame ku qaasay hadda waxa arki doonta hadda 1 hour aad waxaanu iswaalayaan oo isgedinayaan adii time frame ku qaas rabaa oo kaliya baalka ka soo falanqays aniga 4 hour markan ka soo tago 15 minute meel kale isheed aadi mayso only 15 minute okay 15 minute waxa ku sheegaysaa hadana 15 minute isweydiina marka ina 15 minute la sheekayso 15 minute da fiirisid waa la sheekaysanayna sheeko u baahan tahay okay meeshaan hadda waxa jeeda in demand zone hour mayo maxaa sameysaa 4 hour kan waxa ka dhigtaa BBU waxa tirtirin hana soo yareen adihin inta 4 hour inta ma yahdin 4 hour ka ku yaala maxaa yeelo marka la taabto waa doontaa in 4 hour hadda soo yareyso markii tusaalahan suuqa du ka soo laabto waran hal mar waxa fiirinaya marka soo yareyso supply zone suuqa du xakan ka soo laabto waran haduu meeshan ka soo laabto supply zone ka soo laabto maya laakiin haduu ku weyn waxa dhahay 4 hour supply zone ka soo laabto marka hadda waxa sameeyna kan waxaan yareynaa kaliya biyaha waxaan ka dhigaa light skin ka dhigaa waxaan arkay okay waa ark marka hadda meesha maxaa ka dhacay meeshan maxaa dhacay reaction breakan xagee sameeyay aniga waxa rabaa supply zone indhahay ka qabanayaan hadda fiiriso xagaas waa supply zone indhahay qabtay mitigation lagu sameeyay waxa indhaha qabanaya kaliya rabaa that's mitigation another supply zone waa kana another supply zone sidoo kale waxa saar kartaa fiiqa qofkii trade 15 minute ka galo fiiqa soo saar kartaa laakiin aniga waxa u isticmaalaa click confirmation inuu isticmaalaa rabaa marka kulli saaro kulli labada fiiq ba saaro hadda marka waxaan haystaa Philip
waxaa haystaa Philip 15 minute ah waa haystaa lag Philip 15 minute ah qofkii ku talagalay sidoo kale kuwan waa liquid meesha maxaa haystaa anada supply zone reaction laga dhameeyay kan waxa cadeenay control ko noo haya supply zone is clear in control trade kala meesha ku jiro shalay iguna u laabo doona hadda kan maanta ka bilaaba waa arkayna kuwaas kale hada fiilis meeshan supply zone waa laga soo laabtay anada supply zone noo xishmay supply zone sidoo kale wuxuu leeyahay waa dhihi kartaa hayga u dambeeyay waa la qaaday liquidity waa semester waa dhihi kartaa hadda marka adiga gacmaha isku laabo laba mid waaye sidoo kale waxa calaamaysan 15 minutes idin waa qasab or habarkan idin BB iga dhig or habarkan BB ka dhig soo yaree kadib waxa sameeyay hadda suuqa wuxuu joogaa 15 minutes supply zone wuxuu joogaa 4 hours supply zone aniga 4 hours supply zone marabe 15 minutes waa 15 minutes 15 minutes waa kahay kanalka u dam 15 minutes supply zone عدك خفكي سوق العدك أنا يحرف فضلا 15 minutes supply zone تريك كان لندن سيشن أها وكنت سدنا سدوا إضافي هل اللوجو إنه قدام ببالغ هذا وجد ده يقول تقولها ساكي وسوج مركب سوق أنت تابت ومحسم إسلام مركب 1 minute هذه 1 minute تريد مركب كلها سوق مرة بدل حرب إنه كعرض هذا تصالحها ماشان ويقعر 1 minute وأنا ده فيرس محسم لو رح نمبر 1 هرت شوش وكنا this is church فوجك واكاي maxaan sugay inta trader ma tan ma ahan kan waa George sidoo kale wuxuu ku siiyay supply zone wuxuu ku siiyay reaction mujda supply zone maxaa helay there was reaction break isla markiina waa la jibin mujda isla markii reaction break kan la ku dambeeyay waxa saarnaa inside bar sidoo soo saartay Washington inside barka probably uu ku soo laabtay kan waa ku soo laabtay كود 15 من الكود نفسي وجد عرق قفكي ماشان قاطي اوكي هاد انا waxa sugay waxa ahayd this markuu sasimay kan waa reaction break fi qaniiriska sugay fi qaniiriska inuu soo laabto this fiiqan inuu soo laabtan sugay marka it is what it is marka qaar waxa ardooda inuu trade ka carro oo adoo lahay Egypt uu ka carra balaa inuu carra ma ahan waxa markaan oo kale wuxuu ahaa London session yes wuxuu ahaa 10:20 meelaas London session hadda marka 15 minutes oo soo calaamaystay 15 minutes igu celin mar 15 minutes suuqa waxa ka soo tagay 15 minutes ka soo tagay adiga 1 minute ha aadin ilaa 2 minute 15 minutes ha lagu soo laabto hala jibiyo kadib 1 minute meelaha wax ma kala raadi karaan mise ma ahano mise kaasu adiga gacmaha ay ku walwalin hadii suuqa way sugaya maxaa dhacay demand zone kana fiirina supply zone fiirina 1 minute aada 5 minute aada waxaan aada 3 minute aada 30 second kaas waxay cadeen trade-ka qasbis trade-ka gacmaha isku laabo kaliya dheh 15 ka maanta kana sugaya mise waxaan sugayaa inuu soo jabiyo wax kale oo maanta ii qabanaa ma jiro waxa ugu muhiimsan suuqan ku saaciduna waxa ina gacmaha isku laabato meesha dhahdii maxaa yeelay meeshan waa Philip 15 minutes ciyaar maaha Philip kan haddaan aniga ku ahay qof 15 minutes ku tiragalay 15 minutes ku tiragalay waxa soo qaadan lahaa baalkii maxaa lahaa waxa soo qaadan lahaa gamboxkiga boqolkiiba 50 ka gal lahaa stop waa dhiga lahaa probably 7.5 waa dhiga lahaa haddaan ahay qof 15 minutes ku tiragalay hadda laakiin 15 minutes kuma tiragalay waxa ku tiragalay 1 minute mise 4 hour 1 minute mise seconds sug gacmaha isku laabo علاميسو أنا سبلايزو ماشي أم بوجتا هذه سبلايزو كست علاميسو probably كان وعي علامة أنا لكن وحاول استعمال ده كلي continuation مع continuation إلا أو حاجة كسيت ما تقانا وحارب إنه السوق يعياره وحارب إن سبلايزو لقيته كده بصلاته continuation وحكرب إلا حاجة continuation ولا لكن ولا 15 من الجوجا 15 من continuation كاس وحكرب 15 من كربا ما حد عاي هذا مركز أكشن ماشي waxaan dhan soo laabta amleena adiga 1 minute aadin ha qasbin haduu okay
markaan oo kale haddana anada dhiman supply zone meelahan ku jiro sida wax igu calaamaysnaayeen aan rabaa waxaa rabaa taariikh wax markaa samaynaysa is anada supply zone laakiin supply zone ma aha supply zone filipkii sameeyey iska calaamayso adiga iska calaamayso supply zonada dhan reaction laga dhiibay weli 1 minute aadan weli 1 minute ma aadan aniga kaliya kaas maanta indhahayga kaasa isheeda ii cad waxaan soo dhigay group caadi soo dhigay kaas marka la ii tago sidoo kale waa kan inducement ahaan loo isticmaali doonaa meeshaan inducement ahaan loo isticmaali doonaa supply zone waxaa loo isticmaali doonaa inducement ahaan dadaa meeshaan ku qaldoomi doono oo tareerka gala doono tareer oo qaldoomay laakiin aniga maxaa dhahnay haddii laba supply iskor saareen kan hoos waxuu isticmaali doonaa inducement sidoo kale kaa kore hayga hore u qaaday waa la qaaday marka waxaa sameynaynaa inducement sidoo kale waxaa maleynayaa 1 minute meeshaan waxaa ku jiro liquidity nadiifa ku jirto 1 minute okay waa kana marka isla markaa 1 minute tagaa waa kana markaan kale waay halkan dal bis ii bixi halkan dal okay malay taabtay waa marka kaliya 1 minute aad maanta 1 minute isla marka 1 minute aad 1 minute aad meesha waxaa arki kartaa in liquidity ku jirto waa ka liquidity ana inducement ahaan loo isticmaali doonaa sidoo kale waxaan noo isqob kartaa mis inta series ka badan okay hadda marka maxaa dhacay hadda marka 1 minute waa la yimaaday wax fiirina horta 50% ma soo laabtay qofkii 15 minute ka gal lahaa ma loo taaban lahaa fiirina hal mar 15 minute waxaa dhahnay gunbox kana isticmaalna boqolkiiba 50 loo taaban lahaa probably arkeena kan laga dambe inuu taabto okay hadda aniga 1 minute jooga 1 minute maxaa isweydiinay 1 minute hal su'aal kaliya isweydiinay war wax suuqa all kala tari muksi Philip waxyaabihii dhan high time frame kaasi hadda marka lower time frame story waa sheekayna kan dhaxmarto lower time frame wax isweydiinay hadda markuu ku taabto suuqa where is the last demand zone waa kana demand zone ugu dambeeyay reaction laga dhiibay demand zone ugu dambeeyay reaction laga dhiibay aniga reaction kaliya maro ha ii jibiyo okay muusan jibin qofkii 15 minutes isticmaal waa hadda waa loo taabto waa kay iga tir marka ina arki bisaaray okay suuq wuxuu samaystay anada demand zone samaystay anada demand zone kiya kanalka madow hadda maxay anada break strategy dhaxay demand zone ugu dambeeyay 1 minute Philip ki hadda 1 minute ka raadina mise George raadina George mise Philip labadaas kaliya raadina okay hadda marka demand zone waa la yimaaday laba mid ay noqonay ama ha ii jibiyo tareerkan kulli toos ha jibiyo confirmation George qaadana mise ma ahano Philip maxaa ka rabaa return break qaado okay the first waxa maxaa heshay wax ugu muhiimsan waa heshay respect waa heshay ha ii jibiyo okay ma qaani kan waxa la rabaa inside bar laga dhigo meeshaan waxaa laga rabaa inside bar laga rabaa wanda waxna leedahay inside bar laakiin fx waxa arki doontaa meeshaan hal mar fx ma aadina fx waxa ku sheegay meesha inay tahay inside bar inay ku sheegay waa kana meesha inside bar oo wajida marka kuleeyahay way kala duwan yihiin bahaladan waa inaad la socotaa midka ku shaqeeyo hadda fiiri markaad joogtid forex.com meesha waa inside bar laakiin wanda maxay noo sheegtay wanda waxna leeyahay meesha inside bar ma ahan waana qaldantaa wanda meeshas waa inside bar حاجان inside bar laga reebo ma qaan wuxuu isu saar la siihay okay maxaa haysta hadda waxyaabay dhan iskara waa heshay maxaa kow ku ah high time frame hadda low time frame jooga low time frame sidoo kale wuxuu siiyay demand zone la yimaaday reaction laga dhiibay break ala sameeyay waa kana break hadduu demand zone la break kare iyadana waa boqol way fiican tahay haddii laakiin level of respect measure respect kasmi haddii la break kareena labadaba fiican tahay laakiin waxa ka sii fiican in demand zone dhan break lagu sameeyo okay hadda waxa sugtay ma wajrabo waxa sameynaa
okay sorry wali soo hadda waxaan joognaa waxa hal mar chat kii soo qorma wax ma la maqlaa okay waa wadana marka maxaa dhahnay every criteria waan la siiyay oo high time frame wax kasta waa ka soo aragnay lower time frame joognaa lower time frame idan wax kasta waan la siiyay Philipkan one lower time frame ka rabnay lower time frame maxaa la siiyay waxaan la siiyay react break hadduu siiyay dhigo entry ay dhigo hawlwalin hadduu stop loss ka dhacaa dhib ma lahan marka laba siyaabood jir laba siyaabood mid horta walwal ma jiro midka hadda waxaan arkaynaa korkeena nagama jiro supply zone kan nagama jiro oo mitigation u baahan markaana kale marka hadda ta qof risk garay 0.25 markaana kale risk garay waxa jiro lugaha hadda hadduu supply zone korkaas naga jir lahaa waa walwal yaraan qaban lahaa tobriska wuxuu ahaa probably 2 bibo ahaa hadana ka galay spread ku darso 1.6 spread 2 bibo ahaa tobriska markaana kale waa trade ugu fiican maxaa yeelay korkaan anada supply zone kor ma ka jiro wax hoos ma ka jiro waa markaan ku bashaara la markaas kale xagee target ku target is always ama high low hoose lowga target gare oo waxa dhahdaa suuq waxa sugta inuu sweep gareeyo maxaa yeelay meeshan waxa yaala alof liquidity meeshan kale marka waxa dhahdaa targetkay waa lowgana target gareena mise markuu lowgan ku yimaado suuqa lacagta lala bax boqolkiiba inta noqotaba qofka asaga yaqaan oo trading plan-kiisa la rabaa inuu ku darsado habeenka marka hadda trading plan-ka ku darsanay meeqa boqolkiiba meeqa la baxdaa anoo kale hadda maanta markay ahayd meelahaas kale waa laakiin target tahay sembir ha dheeraado oo hostas meelahaas kale target ka dhigo suuqa mar alla markuu soo dhacanay lacagtaada xiro haaf la bax inta gal inba waa igu wareeg maxaa isla markaa la ii taabtay immediately isla markaa trade ku taabtay waa isla markaa lagu taabtay hawlwalin kor wax kaama jira adiga kaliya aniga waxa igu walwalsaa suuqa wuxuu la galay correction dheer agtan waxaan soo dhigay groupka weynka soo dhigay MT4 ka correction dheer oo la galay markaan kale ilaa walwal laga baahnaday fiiri xaga waxa ka jiro meesha waxa ka jiro demand zone ka jiro hal mar waxaan rabaa sawir yar inaan tuso sawirkaan arday wax soo dhigay groupka soo dhigay ma hal mar sawir yar inaan tusaa sawirkaan waxa waay sawir soo dhigay arday soo dhigay oo xumo ma ahan hadda fiirisi waxaan ka digi waay lower time frame waxa ugu suuqan dadka khaldan waxa waa lower time frame hadda qofkan ma xumo wixiis way fiican yihiin laakiin sawirka kore ma soo fiirin hadda fiiri suuqan qofkii hadduu saan high time frame hala waa suuq qatar fiiri Philip wuu haystaa the expected return liquidity dib malahan waxa dhan wuu haystaa laakiin jarka maxaa qaldan waxa qaldan waxa waaye high time frame supply zone in loo soo socdo muu ogo kaliya lower time frame ka bilaw 1 minute suuq iska soo calaamaystay demand zone ka soo calaamaystay suuq respect demand zone sameynaya wallahi maanta galabta markaan soo diray tareerka ani inta meesha waa kan ayaa sela ugu jira qofna group wuxuu soo dhigay inuu meeshan buy u gal rabo markaas oo kale qofka ma qaldam waa markaan ku leeyahay high time frame waa the most important waa waxa ugu muhiimsan suuqan hadda qofkan hadduu high time frame arki lahaa inuu suuqa supply zone Philip lagu tagay uu suuqan soo socdo muusan gala tareerkan laakiin uu soo kacay kaliya 1 minute ka bilaabay marka maalin kasta ka digaa 1 minute hadda marka waxa arkay meeshuu back galay heeri maxaa dhacay waa loo bilaabaa every day lagama yaabo suuqa inuu toos isto hadda meesha demand zone sax tahay waliba demand zone Philip sida hore u soo aragteen meeshan waa demand zone Philip meeshan waa demand zone Philip lagama yaabo suuqa inuu iska soo socdo oo habada hal mar iska aad lagama yaabo adiga waa lagu bilaabayaa faa'iido yar waa lagu bilaabayaa faa'iido qofkan faa'iido waa loo bilaabo wajida hadda markuu inta gala almost 3% waxa u socday faa'iido u socdo hadcay meel khaldan at the end of the day suuqan wuxuu ku aadi doonaa aniga markaan kale break even kay meeshan waaya break even meeshan break even ay ahayd last level high break even inta kara waa maxaa yeelay meeshan sidoo kale waa choice saxda ah
بريك في حاجه سكروا تريد كان مركو صان ولا أطابتي ولا أبتي أنا لو شيء صحيح ما قال إسلام مركب بريك في صلاة مغرب يهد بريك في الناس كتكي هذا iskala laabana muxuu laabanaa ana supplyzona soo buuxinaa suuq iskama socdo waa inuu wax soo buuxiyaa bis supplyzon kala soo buuxinaa correctionka hadda fiiri qof hadduu arka wara correctionkan dheer lama rabo hadda fiiri suuqan goorma gale waxaa gala waaba almost shanta iyo toban daqiiqo shantii toban daqiiqo maqribkii shanta iyo hal saac kadib weli wuxuu meelahan warwareeganaya hal saac kadib markaana kale ay tradeka xiran suuq hadduu kula wareegto euro USD barihan dabacadana keentay haddii kula wareegto maalin kasta ha sugin suuq inuu markaad buy sell markaa u gashto isla markaa to the moon ha sugin waa lagu waalaa waxay harta haddaad tareedka wax kasta kasoo falanqayso wax kasta kuu saxan yahay adigu sababa u walwalsimo ma jirto sababa walwal aad u qad ma jirto tareedkana hayso stop loss mar allaala marka stop loss break even noqdo waa mar mid kala jirto marka stop loss marka break even dhigaysa faa'iido meeqa ku socdo fiiri almost 7 hour ku socdo 7 hour kan waxa samaysaa adiga tareedkan maanta oo dhan aad hal saac kula wareegtay pay yourself nafsadaada wax sii wax trading plan ka mid tahay habada ma wadleena laakiin nafsadaada wax sii حتى 1% حتى كن خط صالحان أكونك هدو كنت كن دور كجرته 1% ما قوي شن بقول حتى نيده كود اسمه سوق كبر هدو ما أنتوا لنا إسكايست هدو حتى بريك إيفن إسلام مركب بريك إيفن عادي هدو كقول أبكر وبريك إيفن كاسر ما وحون حر عادي وحون لكن كالبر يوحس حرن مركب أنا كل حال حتى 2% 3% وحون نفس هذا شحشاح نفس هذا سيا قفكي أكونك بقول كم وجرته 1% وكن دور شاح نفس هذا سي تلاقي سيا هيسو لكن هذا كوس ولا تو أدي بتدرس كله أوكي واسي ودنا ناتر مح another dimension sidoo kale dimension kan another civilization kala xishmanaya waxyaabahan kala had trade kan kala hadii xalaha anoo trade isku jiro xiliyadan trade galay waa بعد المغرب ويلا الكيس كده هادو soo laabtis ana good trade correction kula galgalo du ku soo laabto this another good trade how many 15 hour 15 hour ciyaaraya adii 15 ka aag hasi haysan waxaan nafsadaada wax musi hadda marka meelahan kala marayso salaha ani waa 10 hour markii meelahan logan meesha ku dhahay low suuqa markuu logan kala gaaro 12% bis 30% hadoo kale waxaa la sameeyaa boqolkiiba adii meeqa soo hartay boqolkiiba konton camal faa'iido la bax boqolkiiba konton camal wax la bax waxun la bax maanta oo dhan waxun baa la baxaa hadduu kugu soo laabto dhibaato ma lahan hadda marka xaggas waxa ugu tagaynaa trade flip waxa ugu tagaynaa waxaa arkaynaa trade kale oo church ah laba trade kale ku dara oo shalay ah laba trade kale oo shalay ku dara okay hadda habeen noqoto waxaa arki doontaa lacagtan weli waa ku jira weli still is scanning waa iska wareegsan doontaa tomorrow musahabada ilaad mise to the hell marka hadda waxaa arkaynaa another trade of church weli way shaqaysaa ma ahan inaan okay hadda marka 15 minute iyo celi trade kale oo shalay yesterday iyo hada malina yesterday almar 15 minute ninkan iga tir okay yesterday shalay الآن هذا ملنا ماشي أنا عمل جد ماشي شالي هاد لندن سيشن فيليب أوكي فيليب كان سيدو كله ماشي محنات هاي سبلايزون وتريد ريسك سبلايزون ووجد إنه highly in control highly مرة حاجة تقولوا مرة every civilization is respecting مركانو كله ليش كملها ملها
tusaale george tusaale george okay suuqan oo yimaaday 15 minute demand zone yimaaday 15 minute demand zone marka maxaan rabaa inaan arko ujeeda very suuqan waa suuq downtrend saa'id ku socdo adi lama rabo markaan kala soo sheeg muxuu ahaa almost lana session furmaya flip reaction dhibaya haddii tahay high reaction kan oo 15 minute ka wax reaction yar baa noqoto intaan yariista waxay noqon doontaa markaad aad 1 minute wax weyn noqonayso هذا اسمه مركب بريك imo haduu hawada aadna ku hayso isla marka break even trade-dan kale trade risk laakiin uu arkina sida uu faa'iideysan okay maxaa dhahnay this is flip or demands of flip mar allaala markii lagu yimaado maxaa dhahay isla marka 1 minute adiga hawlwala the fasting mar allaala markii lagu yimaado demands zone waxa uu hore asmay karto waxa waay run 1 minute ad laakiin adiga lagu imaan hawada inta lagu soo jiray 1 minute meel sahraadin kaliya waxa 1 minute maada markii lagu yimaado sidoo kale meesha maxuu siiyay triple bottom double bottom xataa laga tagay triple bottom okay liquidity si loo sweep ku straight wuxuu yimaaday demand zone yimaaday hada markaan kale marka flip qadis waa kana hada flip qadis waxa raadinay the last demand zone the last supply zone raadinay hada choch qadis meeshaan choch baa dhigi kartaa laakiin choch ana waxaan jeclahay inay noqoto pivot meesha skor maal korkaas xagaan waa choch waa sax meeshaan waa lower aha لكن هل كندل كليه سوغل كندل مدوي هل كندل ما سوغل او ولي بكره حتى waxa laga inuu inside bar kan inuu noqdo laakiin may waa bay hal kandal charge inuu ku qaad kandaladan badan waxa fiican kandaladan badan okay waxaan sugaa inuu charge iga siiyo remember suuqan hoos si awood leh hoos u socday okay hadda marka charge waa heshay charge hada heshay waxa u laabanay where is the last demand zone maya charge marka joogto demand zone the last medians waxa isweydiina where is the extreme demand zone unmitigated philip marka dhan maxaa dhahan philip waxa rabnaa philip marka joogno maxaa dhahan meesha reaction ka dhacay waxa rabaa candle move ka jibiyaan rabaa laakiin charge marka taa waxa rabaa extreme meelaha sarabaa okay hadda this laba demand laba hadda waxaan oo laba supply zone oo yaalo the first one waa kana waa kaliya hal candle meel soo galay candle buy hal candle wax soo galay oo candle buy wax soo galay hal candle sidoo kale xagan okay sidoo kale meeshan waxa ku jiro adi markaan kale waxa sameeyaa charge aad tahay waxa qaadanaysaa qof waxa tahay risk entry qaadanaa tahay waxa sameeyaa kaliya waxa qaadataa the extreme 15 minutes wixii 15 minutes meeshan wax kale ma iga time frame ku yahay ku muhiimsan yahay okay hal mar 1 minute wixii markaa حاجه استعبته واسبدلها عملها كراهه وفيرنا مركه سي اود لو كروس على انتري كان قاده مركه ذا اكستريم تبرس اولموست تو بيب فيرنا مركه لو تابتي هبدا لو aaday waxaad waxa fiirina ma heli karna confirmation entry maxaa confirmation ku ah waxa isweydiinay ha ijibiyo another boss waa kana boss uu isiyay okay hadda marka qofkii kan qaadan kan kowaad qofkii qaadan kan labaad uu qaadan karaa kan ways dal kan labaad waa kana kan labaad laakiin badan waxa dhahnay kan labaad in hawada lagu aadalay inta confirmation suus in hawada lagu aadalay laga yaabaa
probably kan kala laabtay amazon kan dambu kala laabtay target waxa ku ah always 15 minutes anay target kirtaa there is no wax kale ma jiro 15 minutes hadda 15 minutes fiirisid xagga target ku ah sidoo kale xaggaas waxa u isticmaali kartaa another continuation confirmation trade عشان wax ku jiro walaalaha isla waxa raba isla charge ka noo qaatay trade kale confirmation oo xagga maxaa ka dhacay adoo trade ku jiro kan uu ku socdaa mid labaad laga raadiyaa mid labaad say u daari kartaa maxaa lagu yimaaday suuqu soo dhaqaaqay demand zone supply zone waxa lagu yimaaday high time frame supply zone reaction laga dhiibay break hay mar alla marka reaction break aragti maxaa sameynay 1 minute وعر 1 minute si nadiif ah ku arki doontaa almaanta iga tir caaw 10 ku dheeraada laakiin dib malahan okay fiiri meesha maxaa ka dhacay supply zone high time frame lagu yimaaday reaction laga dhiibay break ala sameeyay break xagee ka dhacay demand zone another demand zone laba demand zone is agyaalo maxaa kan waa la qaadan karaa labada kana fiirinayna maxaa yeelay wuxuu leeyahay sidoo kale inducement uu leeyahay fiiq waliba saaro fiiqa kaliya saaro stop loss kan xagga ka dhigo stop loss 2.5 okay hadhay wali ma reaction yara lisiyay dib stop loss laga dhaco stop loss marka saan laga dhaco hal mar waxa laabanay high time frame u laabanay maxaa dhahan mar alaal markii stop loss laga dhaco waxa ugu muhiimsan waxa waay high time frame u laaba hal mar waxa isweydiinay oo suuqa ma meel kale oo hoose ku soo laaban karaa oo wax kale ma jiro isweydiin demand zone kalmeelaha ku jiro unmitigated okay isla marka waxa sameeyay waxa dhacay isla markii waa meeshaan qaadanay ana ma qaatin trade kan laakiin wuu dhaqaaqay maana qaatin trade kan oo maxaa yeelay intaan 15 minutes ku laaban lahaa oo iga dhaqaaqay lahaa 15 minutes intaan ku carro this is another good wuxuu ku laabtay extreme ku laabtay oo marka ku dhahay extreme is always valid markasta supply zone u dambeeyay iyo demand zone u dambeeyay fiirin extreme markasta uu shaqeeyaa extreme xataa uu shaqeeyaa qalad maaha extreme hal trade kala ku daraa kadibna isku goynaa the last trade ku daraa last trade waxaan waa wixii shalay maanta dhac kaliya waa wax kale oo dhacay 15 minutes okay 15 minutes meesha maxaa ka dhacay hal mar waxaa rabaa 15 minutes kaliya rabaa waxay ka dhacay supply zone waa kana supply zone suuq jooga supply zone waa reaction meesha maxaa ahayd demand zone ay ahayd demand zone reaction yara laga dhiibay waa laga laabtay demand zone ka qofkii meesha waxaa noqotay marabin qashin qasaan ina qashin u noqoto okay reaction break supply zone haduu suuq soo laabto isla 1 minute hadan trade kala raadina عملنا تريد كان واحد تريد كان هذا أصلا شرحة عملنا بدو كل عودنا عملنا كاس منه دو لابتو كاس عملنا فيري ماشي محك دحي هل مر يجر fifteen minute liquidity waa lagu siiya 15 minute high udan bay waa la qaaday sidoo kale hadda maxaa sugay 1 minute in lagu siiyo 1 minute flip mis 1 minute charge labada baa raadi kartaa 1 minute charge mis 1 minute flip trade kan ugu dambeysina dulqaad hal mar maxaa dhahnay liquidity adiga ku sirmin
haddaad aragtid in lagu jibiyey hadduu fiiq jibiyo xayga u dambeeya haddii la qaado fiiq lagu qaado kaas waxaa la lahaa grab of liquidity sweep waa kaliya wax kale maahan ha ku qaldoomin cashirka liquidity ku laabo hadda waxaa isweydiinaya xagee baa demand zone probably this demand zone reaction maxaan rabaa break okay break waa haystaa first supply zone the next supply zone laba supply zone haystaa kee baa qaadana ka hadduu liquidity abuurto kana qaadana hadduu liquidity abuurna kaasa qaadana si walba anagoo high time frame liquidity aan haysto waa cararay I think soo laaban doonaa hal tareka wax xasuusta shalay London session ahayd waa kan maxaa lahaa hadduu liquidity abuur lahaa kan liquidity maahan inta ma dhihi karin inducement ma dhihi karin dadaa waxa leeyahay kan inducement waa ma ahan inducement ma ahan kan waxaa raba lahaa inuu liquidity abuur si uu qaato haddaysan liquidity li abuur maxaa dhahay extreme is always valid hadday liquidity lagu abuuro extreme ka sempre shaqeeyo stop almost 2 bip iska dhigo xagee target 15 minutes supply zone kan wuxuu ahaa shalay New York session shalay ahaa wax xasuusta okay waa soo gabagabeynaa waxaa galaynaa su'aalaha waxaa galaynaa hal mar recording ka xiraa